السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا سلام أصحابتا قالية ميل ولدون دافية كجوكتان سلاك بعدي وحربا قصير كوبا وانا قنيت مقضي إنان لو ذاقو قصد وحاول حساسية وحاجر تويل احمل لدو يويل أكرم لدو ويستعلاي وغوري مركور أصحابي ياهين أصحابتي وحاكا بلا مجاعل لحدو وحاكا بور مجاعل حد دافا midba midka kale aad ayay u jeclaa waxaana noqday laba qof oo la isku diri karin cadowna soo dhex gali karin ase yeeshee maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday axmed inuu ku yiraahdo karamo waxaan kaa leeyahay rajo waxaana se rabaa inaad noqotay marwadeyda wuxuu ri waad ogtahay xaaladayda sida runtaan waxaan rajeynayaa inaan isku dayo xaafadda ku qanciyo akrama waxa ay bilowday in ay xaafadda qof ka mid ah u heshiiso laakiin ma oga caqabada kaga imanaysa waxa uu sheegtay qof xaafadda ka mid ah waxaana ku tiri nolol ayaa rabaa in aan bilo sidii jirtay xaaladda ayay u sheegtay kadib wiilku wuxuu iska hawil danyara xaafadii markaa ay maqashay akrama waa ay cadaadiyeen waana xumeeyay misana caqabad ayaa kaga timaaday iyada ay saatay haddana akrama waxay la wadaagtay axmed arrintii xaafadda waxba kama jawaab celin waxaana moodhin kale wuxuu ugu jawaabay wax walba khayrka ay tagi saamarkuu ku yiri akrama waxa uu sameeyay axmed isagoo danyara ay wuxuu isku dayay qofku uu jecel yahay sabab uu ku heli karo iyadoo u noqonin haddana wuu isku dayay wuxuu bilaabay inuu lacag fuujiriya uu sameeyo ase yeeshee asxaab qaar ka mid ah ayaa soo sheegay misana axmed waa lagu qabtay waana la xiray akrama ma oga laakiin gadaal ayay ka ogaan doontaa waxaa dhacday 5 sano xariga in axmed la xiro ay telefoonadii kala lumaan aanay iswariskayn axmed muu iloobin lambarkii akrama waanu xasuusnaa 5 sano oo xirnaana telefoonkiisa muu jirin markuu soo baxay iyo akrama wacay waxaan soo bariidi kadib intuu bariidi kadib wuxuu ku yiri maxaa kugu dhacay ima soo raadin ima soo booqan jeelkana iguma aadima waxay ku tiri waan ka xumahay maan awoodeyn wuxuu yiri maxaa kugu dhacay maad guursatay waxay ku tiri maya haye ma farxad kale aad yeelatay nolol kale waxay ku tiri maya laan maxaa kugu dhacay maxaase ku helay waxay ku tiri sida runtii hadda ma qeexi karo xaaladayda balse adiga sababta jeelka uga shay maxay tahay wuxuu ku yiri adiga sida aan ku helo ayaa aan u sameeyay fal lacag fuujiriya waxay tiri maxaa kugu kalfay maxaase ila tashan weyday oo iigu sheegi weyday waxay ku tiri wuxuu ku yiri hadda aan ku sheegi lahaa waad iga jooji lahayd waxaanan ogaa inaanad ii yeeshin sida laajigeeda ayaan kaaga qariyay oon u sameeyay saan adiga ku helo runtii akrama waa ay murugood waan ay oyday laakiinse waxa ay ku tiri wuxuu ku yiri waxaa rabaa inaan kulano waa ka xumahay waxay ku tiri waxay u soo dirtay quraarad amba caag waxaad ku garanaysan camal oo dhalac ama oo wax ku jiraan wuxuu ku yiri maxaa waaye waxay ku tiri waxa weeyaan inta aad iga maqnayd ilintii iga dhacaysay misana indhahayga qabanaysay maxaase kugu dhacay waxay ku tiri hadda waxaan waaye xubintii jirkeyga ugu qaalisneed oonay tahay indhaha haddana ma kulmi karno koomana iman karno ilintii badneed indhahayga ka dhacaysay ayaa indhahayga wax yeelaysay axmed aad ayuu u murugooday waanu ka naxay waanu xumaaday waxaan suuna ku dhahay maxaa sameysay waxay ku tiri maxaan sameeyaa adiga la ayaan ku waayay Soomaan runtii wuxuu ku yiri maxaa xalaa hadda waxay ku tiri maalintii anigana aan u sheegay xaafadayada aan ku yiri wiilkaas ay soo doonanayo misana imanayo waxay igu sameeyeen waxay iga timi caqabad waxay igu sameeyay dhibaatooyin badan
waana layga kaxeeyay halkan isku ogin. Waxaa lay geeyay wadan kale, wadankaana guri baa lay geeyay, kamana soo bixin jirin. Waxaana layga dhigay xabsi. Inta adigaba xabsiga ku jirtay ana waan ku jiray, indhahaygana xaggaas ayaan ku beelay. Runtii wuu ooyay. Waxay ku tiri hadda nolosheena iyo farxadeeni wax iska dhibi ma lahan. Wuxuu ku yiri inaan kulanaa raba, inaan ku arkaa raba. Sidaa runtii qisadan aad ayay u xanuun badan tahay. Qofkii damiir loona way damqaysaa. Bini'aadanka qaar horta kalsoonidu waa shay qaaliya. Qofka ballan ha u qaadin haddaanad oofi karaynin. Hana ka lumin waqtiga. Haddaanad oofinaynin misana aad u rumaynayn rajada uu qofkaas kuu qaaday, maxaad waqtiga uga cunaysaa? Runta u sheeg adigoona la goonin. Runtii waa xanuun marka laba qof oo isjecel la kala fogeeyo. Amba aboowe, haddaa aad tahay qof wax jecel ha ku ciyaarin alaasho. Qalbigana waa dhalac camala. Runtii waxaa jira dad qalbigooda lagu ciyaaray oo iyaguna jacaylka damqaayo. Runtii aniga waxaan jeclahay inaan ka hadlo, balse xanuunkiisa inaan ku damqo waa necbahay. Aad ayaanay u xanuun badan tahay. Adiga wax reeya ma iga siin kartaa? Adigaagan fiirsanaa misana dhegeysanaayo qisadaasi haddii adiga wax saameyn ku reebtay.